mar haddaan hanadada hantidaada leh hoosta kuu dhigay miyaan ku hagraday waayahay su'aalaan ku soconaynaa su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay ragga imisa marxaladood ayay dhaqan ahaan maraan raggu hadda ka hor maxay ugu diyaargaroobi jireen abaaraha maxay caan ku ahaayeen maxaa lagu xasuustaa maanta oo ogtay xaaladda halka marayso bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan ummadda muslimiinta waan idin salaamay meel kasta oo joogtaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam bacdigeed waxaan halkan idinka soo tubinaynaa barnaamijkii dhaqanka oo marti inoogu yahay axmed maxamuud axmed oo ka mid ah odayaal dhaqameedka maamulka magaalada qabri bayax oo aan la yeelan doono maanta barnaamijkii dhaqanka waxaan weydiin doonaa hadduu Allah uu dalhay idmo dhowr su'aalood oo ku saabsan dhaqanka Soomaaliyeed marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray saameynta ay ku lahayd dhalinyarto doorkii ay ku lahaayeen odayaashu iyo su'aalo badan oo kale insha Allah waad nala soconaysaan soo dhawow aad iyo aad baan u dhawahay barnaamijka waan ku dhawahay kulley waxa weeyaan dhaqanku wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo aad iyo aad u fara badan buu leeyahay dhaqanku dhaqankeenu dhaqan suuban oo wanaagsan oo macal xitaa dastuurkiisii wato dhaqankiisu dastuurkiisii wato ahaa waxa weeye wax walbana waxba lagu gudbi jiro waxbuu meeshiisu taagnaa waayahay su'aalaan ka weydiin doonaa barnaamijka su'aasha ugu horeysa waxay tahay dadkii hore iyo dhaqanadii u gaarka ahaa siyaabihi ay ugu diyaargaroobi jireen marxaladaha abaarta oo kale hadda ka hor maxay ugu diyaargaroobi jireen abaaraha maxay caan ku ahaayeen maxaa lagu xasuustaa maanta oo ogtay xaaladda halka marayso wax dibad uga iman jiray iyo wax hadee buxmaaya meel kale uga iman jiray ma jirin dalka gudihiisa waxay iyagu ka samaysteen oo ka beerteen umba haday abaari dhacdo iyo hadii kale mid walba ay kaga bixi jireen wax dibad uga iman jiray ma jirin waxaan dharka la xidha aan ahayn dharka la xidho umba magaalo uga iman jiray waxa ay gabadhu sameyn jirtay wiilka iyo gabadhana shaqadu way u qaybsanayd waxay ugu qaybsanayd gabadhu markay 7 jir tahay ee ariga raacaysay ariga raacdo iyo guriga dhismihiisa bilaabi jirtay oo ay ku bilaabi jirtay xariga soo hitaankiisa ariga dhaxdiisa ku soo bilaabi jirtay bahal duubin la oran jiray bay soo duubi jireen oo ay intay meydhaxda diiraan meydhaxdii oo la diiray baa gabadhu markay 7 jirtay dumarkii waaweynaa soo duubeen oo dumarkii waaweynaa soo yaani maaragtay soo ay geedkii intay ka soo gooyeen soo diireen yaa gabadha yar halkay ariga raacdo loo dhiibi jiro soo looran jiray ariga dhaxdiisa ku soo hijirtay waxay ariga soxdo halkay gabadhu marka qaangaar gaadho yey haddana iyadu samaysanaysay hararkii iyo muxuu ahaa kabadii iyo adduunkii iyo wixii oo dhan bay samaysanaysay gurigeediiba ku talagalaysay wiilku muxuu ku talagalay isaguna wuxuu ku talagalay xoolaha dhaqashadoodii xoolo beeraleykii waxa weeye beertii buu qodayay beerta markuu qodo sidan hadda beeraha waxa weeyaan beertu si adag oo adag baa loo qodan jiray sidan hadda loo qoto ma ahayn sidan hadda loo qoto ma ahayn beertu si adag baa loo qodayay wiilkii oo waxa weeyaan beertii qoday oo xoolihii dhaqday yaa kolkay qaan gaaraanay de guur gaaraanay waqti gaaraan yaa deetana wiilkii oo wata maaragtay raashinkiisii oo beertii u baxday oo soo go'day xoolihii uu dhaqdo caani hayo yaa la isula imanayay kolka la isu guuriyay waalidkii labadii ilmood ay isticlaadaan labadii ilmood yaani maaragtay ay wada hadlaan waalidkii baa markaas loogu tagay jiray waalidkii baa isu guurin jiray raradii gabadhani ay 7 jirka ku bilowday yay isla reerkii gabadha dhalay soo rarayaan wiilkiina xoolihii buu bixinayaa guriga ay dhistaan marada la qaban mooyaane wax kale oo dhex yaalo oo kale dibad uga imanaya ma jirto haruurkii beerta laga qoday waxa weeyaan caanihii uu ninku soo waxeeyay way u qaybsanayd
xitaa waxa ninku wiilku wuxuu qaabilsanaa waxa lagu cuno ee wax lagu cuno haday fandhaal tahay gowdhe haday tahay muxuu ahaa xeedho haday tahay wixii wax lagu cunayo oo dhan buu qoray ama meel ka keen waa khalaas isaga keenaya wax la soo iibinayna ma waxa weeyaan gabadhuna waxan guriga rarada ah la saarayo la gelayo iyaduna qaabilsanayno sameeynaysi isku filan bay hadad isku filan bay ahaayeen haddaba haruurka ninkaas uu qodo sanadkan markii la waayo wax la yiraahdo muxuu ahaa abaari ay dhacdo sidan oo kale ee abaari dhacdo te labadii sano ka horeysay buu baxay haruurkiisa ma waa inuu ku filaado 2 sano oo dambe labada sano oo dambe sanadkan hadda oo kale sidan abaartii noogu dhacday dadkii hore ma ayna waayi jirin يعني راشين بهرشيو بوحدة وبعاير وحويان لقفن جري بهول بالاستعمال جري راشين كان لقوش بجري بقول جوان لبا بقول جوان باللقوش بجري لبا دا بقول جوان مركي لقوش بهرش هاس تير خير كوحي كهر السنة كيد يقول جيران كان لقوا بحوا حكري waxa loo jiiday maartay iyago boorso meeshaas ku jiri jiray kii damba hadana la qodayay kii marka la qodo kiina bohol labaad oo kale loo sameeyay kayd baa marka yaa meeshan yaala sanadka marka ay abaari dhacdo yaa marka ka loo baxsan jiray wax ka yimaada hadii wuxuu maayo muxuu ahaa dibad iyo wax hadii wuxuu maayo meel kale uga iman jiray iyo bariis qalalan iyo waxaasu iyo wax la cuni jiray teemidina ma jirin dadkii marka noocaas ahaa sida ahaayee sida ku dhaqmi jiray saa ku soo dhaqmi jiray yaa maanta waxa weeyaan caanihi bimatalan la cabi jiray caanahan baa la iskaga dajin jiray oo la cabi jiray yani raashinka la iskaga dajin jiray maanta waxa la sameeyaa koob hal saac oo irmaan sicii bay soo qaadayaan caanihiisi waxay siinayaan kiilo bariis iyo xabad muxuu ahaa baashiya qasaaca iyagoo bilaan nafaqo isku darayaan markay isku daraan labadii te waa bilaan nafaqo aana male waxba male aani wal caruurtina bigays bal siinaya marka nohdii baa ka guurtay oo wixii waxa weeyaan waa bilaan nafaqo ba wixii ba nafaqo darra ku dhacday caruurta iyo dumarkiiba dumarkan hadda la ordayo ee la leeyahay waxa weeye baalka geedka la yiraahdo galoolka geedkii galoolka loo oran jiray geedka galoolka la yiraahdo wuxuu leeyahay nafaqooyin badan isaga laftiisa nafaqooyin badan leh dumarku way xaddi jireen geedka waa geedka yaani ugu badan ee laga sameeyo maaragtay guriga laga sameyn jiray geedkaas waxa weeye laftiisa hoose ee engegan ee hadal dhuux ee hoose qalabkan beerta lagu qodo ee nugidale ee kootar kale ee le muxuu ahaa digradii jiqirtida leh ee harqood kale waxaan oo dhan irfida leh waxaan oo dhan ba laga sameeyay maydhaxdiisan kore ee engeganna bahal asal la yiraahdo kol dhiilaha lagu bahla dhiilaha yaa dhiilaha meel lagu culiyay waa lagu asli jiray inta saa loogu aslo iyay biyaha waxay ka dhigax jirtay wax naga madax banaan wadan biyada ka bixisay dhiisha biyaha yaa lagu asli jiray maydhaxda kale ku xigtana jilow baa la oran jiray oo iyaduna waa bahal waxa yiraahdaan jirtay rugum la yiraahdo isagana la rugumsan jiro oo oranayso walaa maxay isaguna macaanka adiga wax yaro baruurahood moodi wax kala baa waa isla geedkii ha waxa laga diirayaa korkiisa muxuu ahaa maydhaxdii waxaan oo hararaday tahay aday kaba tahay aday wax kasta tahay wixii lagu sameeyay yaa laga sameeyaa marka kolkay gabadhu ay maydhaxda calaashato nafaqay ka helaysa te gabdhaha nagi hore waxay ku dhali jireen iyagu sabada ceelka kuwan ambalaasta uu wiida uunayso waxaan u mareeyay maydhaxdii bay u baahan yihiin waayahay su'aalaan ku soconaynaa su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay ragga imsa marxaladood ay dhaqan ahaan maraan raggu dhaqamadiisu waxa weeye dhaqan ahaan kulkii la yiraahdo marxaladaha uu mara 3 jeer buu horta raggu 3 jeer buu raggu kala haraa 3 jeer yuu kala haraa raggu 3 jeer uu kala haraa waxa weeye mar waa marka yaani nin waliba horta kulkii hooyadii dhasho waa geesi ee dhabarka ku wado in kasto islaani ii sheegtay waa geesi waa nin maxay ah in kasto gabar ii sheegtay tiri waa la kala gartaa ragga markuu dhabarku geesi dheerab kuma jirin mahmaada tiraahda
geesi dhabar kuma jiraa la oran jiray su'aal baan weydiiyay islaantaasoo waxaan idhi hadba niyo geesi dhabar kuma jiraa tiraadaani mid waliba kayguna waa fariidun bay tiraahdaa ma waa sidee bay tiri yaan ku yidhi waxay tiri wiilka khatarta firfircoon ee geesiga khatartii kolkan garayska aad ku hayso waxa yacni maahmaahda loo yidhi bay tiri oo maahmaahda loo yidhi markan aad garayska ku hayso dabarka yacni xal la xambaaro inaad cuyubiso u saa u dhaxgalo ma ogolo bay tiri ninka geesigii ma ogolo bay tiri inuu qaydkan inuu yacni ku dhex jiro ma ogolo lagu hoofidsan wuu carcarari qamcuhu kala tuurtuuri wuu ku dhibayaa bay tiri oo himbu la kacayo oo kolba iga joogtay haysta oo inta diidaya ka kalna kolkaad saa u waxayso inaad adigu uun waqti aad yacni caani iyo wax kugu soo dhaceen oo maaragtay adigu in dareento in soo rabtood ka soo bixisa mooyaane maanta oo dhan iskaga dhaxdo duubnaan bay tiri inkastoo ay tiri haddana raggu oo haddana waxa la yiraahdaa uun yacni kolkay wiilkaygu waa geesi uma mid waliba oran laakiin marka uu 15 jir gaaro ay kala harayaan 15 jir markay gaaraan yaa la kala harayaa mid waxa weeyaan aayar dumarka ragga umbu raacaya waagi hore raggan hadda isku dhex jiray iswada dhex ordayay mid waliba magaalo iska sidan yahay ma ahayn nin inay hebel uu kaalin qaaday baa la oran jiray markuu ceelka uu shubi beertana uu qodi sahan ku gali marka kolku wixii raggu qaban jiro oo dhan isagoo 15 jir uu qaado uu sameeyo inay hebel uu kaalin qaaday baa la oran jiray midina wuxuu ku hari uun dumarka dhaxdiisa oo naahebla dhiilashi waxa miyaad cugtay deeshi maad arta godaysay maxayna waxaan wixii dumarka ma ka sheekeynba dumarka ma ku dhaxari shuqul dumar ma ku dhaxari oo dumarka ma wala sheekaysan waa kii labaad oo burga la yiraahdo kaaso ma gud baa la yiraahdaa hanadii hanreef bal ka hanreef horta isaga la yiraahdaa waa ka dumarka ku haraya labadiin markaa way kala hareen marka haddaba labadii wiil oo farax wada fiican oo khatar ay wada noqdeen markay haddana iyagoo wada khatar wada kaalin qaadaan ay si fiican wada kaalin qaadaan markay guursadaan habeenkay guursadaan bay haddana kala haraan waa marxaladda labaad may mid waa dhalinyaranimadii bay ku kala hareen midna wuu hagaagay haddaba labadiiba way wada fiicnaadeen markay labadiiba wada fiicnaadeen ay marxaladii ka gudbeen ee labadoodiiba guursadeen mid wuxuu guursaday gabadh la yiraahdo isku filan haddana la yiraahdo waxa la yiraahdaa yacni kabaa la yiraahdaa gabar fiican oo filan oo kabaa la yiraahdo dananaysa yuu mid guursaday midna wuxuu guursaday baaldi iyadu aan waxba ahaa deelaan dumarkuna aan reef bay leeyihiin mid aan reef iyo guursaday halkaas marka labadaasuna ku kala hareen oo dumarka kala reeba mid mar waxa lagu kala haray 15 jir marna guur baa lagu kala haray marka labaad ee ugu daran ee odayaashii haddaba labadii nin way odayoobeen oo reerihii raggoodii baa dhalay way rag bay noqdeen rag bay dhaleen dumar fiicanna way wada guursadeen oo marxaladda labaadna way ka soo wada gudbeen oo labadoodiba laba dumar oo fiican bay laba dumar kala duwan oo ma laba dumar oo wada fiican bay guursadeen oo marxaladii yani ma aragtay wanaagay wada socdaan wali ilaa dhalinyaranimadii ubadkoodu markuu kaco ee ubadkoodu uu kaco markaasay haddana kala harayaan mid wuxuu noqonayaa kii ragga wax la talinayay kii ragga la tashanayay la qabanayay ceelka la qodayo beerta la qodayo wax walba la qodanayay buu noqonayaa taladu ka go'aysay ka mid noqonayaa oo hawshii rag oo dhan buu qabanayaa oo aabihii buu nasin ka aabihii nasiyay aabihii dee wuu haray madan arag kay aabiga uu bakaas isagu waxa weeye wuxuu qaatay go'shaalaho halkaas uu booday kii wiilkiisu xumaaday ee wiilkiisi haray kaas haray markaa kii wiilkiisu xumaaday baa haray waxa marka ceelkii wada shubay ninkii wiilkiisu xumaaday iyo wiilkiisii wanaagsanaaday baa wada shubay aabba iska fadhi buu wiilkii fiicnaa aabay ana
kii wiilkiisu xumaaday wiilkii aabihii wanaagsanaa iyo wiilka aabihii markiiba labadii baa wada shubay wiil iyo oday weeyaan wiil iyo oday baa wada shubay ceel wiilkan wiilkiisii fiicnaadu dee hawshii oo dhan ka nasiyey iyo kii wiilkiisuu ka nasin waayey isagii nastay xumaaday yaa marka ceelkii wada shubay su'aal baan ku weydiinayaa ma jirtaa suugaan waqtiga laga tiriyey nacam bismillaah rahmaan labada nin labadoodii wiil midina uu dee noqday kormaha uu yacni la shaqeeyey uu shaqadii ka nasiyey midina uu yacni shaqadii aabbihii ka nasin waayey yaa waxaa israacay yacni wiilkii aabbihii shaqada ka nasiyey baa ceelkii bay wada shubeen ceelku waa riiggan oo kale unbahay oo raggu riig buu ahaa wax dira la yidhaahdaa la samayn jiray oo diradaasaa laysu raaci jiro maalin ninku isma taagi jirin maanta lodaadaad waraabin berrina ninka kale lodiisaad la waraabin saasay ahayd oo wax dira la yidhahday ahayd marka waxa weeyaan kii wiilkiisu uu la shubayey kii wiilkiisu yacni uu nasiyey yaa isagoo dee xaragoonayo oo dee wiilkiisii baa ceelkii shubayay moogta lodii sar dhabaya xoolihii ama geeli sar dhabaya yuu deetana heestiriyey xoolihii buu heesayaa wuxuu yidhi mar haddaan hanadada hantidaada leh hoosta kuu dhigay miyaan ku hagraday buuri kii kale ee wiilkiisu xumaaday ee wiilkan kale la shubayey yaa isna wuxuu yidhi calaacal wuu calaacalayaa dee wuu calaacalayaa oo wiilkiisii baa ka xumaaday oo dee wuu calaacalayaa markaasuu wuxuu isna yidhi waagaan dilaynimo dab ka guday iminkuu da'aankii dambasguri iyo daruur ka cad yahay intaa waa u darayee duuban dabaday wiil direeyiyo kolay dumar tahay saw dad uma kaca buuri yaa yacni wuu calaacalayaa wuxuu leeyahay yacni maaragtay waa anunbaa hawshii haya hawshaas waxa weeyaan ilaa dhallinyarada hadda ah iyo wakhti kasta oo waa mawaakhirkay la tallaabsanaysaayo dee ninkii nin xun doorta hadda wax doortaay sidaa unbuu ahaan mas-uulka meel xun haystaa saas u ahaan waa sidii uun reerkii waa sidii uun ambaqaadka geedka sida uurta loo raro